waxaad sheegtaa saxaabigii geeridiisa ay soo xaadirtay 70,000 oo malag. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran saatuban, waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa su'aalo iyo jawaabo diini ah oo muhiim ah. Barnaamijkan waxa uu inoo noqon doonaa barnaamij taxane ah oo aad kaga bogan doontid su'aalooyin iyo jawaabo diini ah. Su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa: kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee ku bilaabay bismillaah ee aan waxba ku noqon? jawaabtu wuxuu ahaa Khalid bin Walid radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii dilay aabihii oo gaal ahaa dagaalkii Badr. wuxuu ahaa Abu Ubayd Aamir ibn Jarrah radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii arkay Masiixu Dijaal. wuxuu ahaa Tamiim bin Aws. waxaad sheegtaa saxaabiga qudha ee magaciisa lagu sheegay Qur'aanka Kariimka ah. wuxuu ahaa Zayd bin Harith radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii geeridiisa ay soo xaadirtay 70,000 oo malag. wuxuu ahaa saxaabigii jaliilka ahaa ee Sacd ibn Mucaad radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii malaa'igtu ay soo booqan jirtay. wuxuu ahaa Cimraan ibn Xuseyn radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabiyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku kafnay qamiiskiisii. waxay ahayd Faatima bintu Asad, Ali bin Abi Talib hooyadii. waxaad sheegtaa munaafiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi: qofkii doonaya inuu shaydaan arko kaas ha eego. wuxuu ahaa Nabtal ibn Acsam. waxaad sheegtaa wixii ugu horeeyay ee uu Alla abuuray. wuxuu ahaa wixii ugu horeeyay ee Alla uu abuuray qalinka. waxaad sheegtaa waxa ugu horeeya ee maalinka qiyaama laga xisaabin doona addoommada. waa salaada. waxaad sheegtaa qofka ugu horeeya ee darka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka cabaya. waa saxaabiga jaliilka ah ee Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa qofka ugu horgalaya naarta. waxaa naarta ugu horgalaya suldaan ama madaxweyne aan cadaalad samayn. waxaad sheegtaa ninka keliya uu nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ku dilay. wuxuu ahaa Ubayy ibn Khalaf. su'aasha ugu dambeysay barnaamijkeena waxay noqonaysaa: waxaad sheegtaa saxaabigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sirtiisa ahaa. wuxuu ahaa Xudayfa radiyallahu anhu. barnaamijkan oo inoo noqon doona mid taxane ah waxaad kaga bogan doontaa su'aalooyin iyo jawaabo muhiim ah. saaxiibayaal, muuqaalka laag inoo saarsiina sheer garey kuna soo biir channelkeena ee subscribe inoo dheh. mahadsanid.